السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال kulanti wacan maalin cusub oo jadiid ah sida aad la socotaan dagaalkii Ukraine oo sii kordhay isbedelo aad u weyn ayaa dhacay anagana maalmahan diradda maanan saarin marka maanta waxaan doonayaa daawadayaal in bal aan eegno xaaladda Ukraine iyo halka ay marayso sidaad ka arkaystaan sawiradan aan xagga hore soo dhigay Vladimir Putin iyo waxa waaye Vladimir Zelensky waa madaxweynaha Ruushka iyo madaxweynaha Ukraine xaaladda saabay ahaan jirtay dagaalka markuu bilaabmay maalmihii ugu horeysay Ruushka waxay hore u haysteen jasiiradda la yiraahdo Crimea ama loo yaqaano jasiirat al-Khrym ayay haysan jireen iyo dhulal halkaas ku yaalo oo laba gobol ah Luhansk iyo Donetsk laba gobol la kala yiraahdo ayay gacanta ay ku hayeen laakiin hadda xaaladii way sii bedeshay tadawur baa dhacay dagaal xooggan baa dhacay maalmahan ugu dambeeyay halka ay gaartay ama xagga ay marayso ayaan waxaan doonayaa inaan diiradda aan saaro haddaan eegno labada gobol hore u haysatay Ruushka ee Ukraine ka haysatay marka laga reebo jasiiradda Khirmiga ah ee hore u haysatay Donetsk oo tan ah qaybtan nuska calaamadda leh buluuga ah ayay hore kaliya kaga haysatay intuusan dagaalka bilaabin laakiin hadda ilaa zoonahan oo dhan ayay ku fiday magaalooyin fara badan bay Ruushka haystaan sidoo kale waxay haystaan qayb ka mid ah gobolka la yiraahdo Luhansk waxay ka haysteen bariga hore ilaa qaybta balse hadda ilaa iyo qaybahan way kusoo durkeen magaalo ka mid ahna way haystaan xaaladda waa sidaas markuu maalmihii dagaalka ugu horeeyay taariikhda markay ahayd February 27keeda Ruushka xooggiisa Kiev ayuu saaray halkan ka muuqato halkaas dhankaas ayuu ka soo galay asagoo doonayay Chernihiv inuu soo dhaafo iyo sidoo kale Chernihiv halkan inuu soo galo oo soo dhaafo xuduudda kadibna oo imaada Kiev ayuu damacsanaa laakiin maadaama ay guryo iyo dhismayaal ay leedahay ciidamada Ukraine ay u tababaran yihiin dagaalka gaadmada ah wuu kari waayay waxaa khasaare fara badan ayaa kasoo gaaray taangiyo fara badan agaga baabi'iyay dad fara badan baa kaga dhintay wuu ka leexday marka khasaarahaas faraha badan markay ku imaadeen wuu ka soo baxay sidoo kale Suumi oo iskaga soo baxay hadda xooggiisu wuxuu soo saaray bariga iyo wuxuu soo saaray sidoo kale koonfurta oo xagga hoose ah iyo bariga ayuu xooggiisa saaray marka wuxuu doonayaa sidaa inuu iskugu xiro ilaa iyo galbeedka halkaa inuu isku wada xiro ayuu doonayaa sidaad arkaysaan Transnistria gobolka la yiraahdo oo calaamadda falaarta halka ay tusinayso wareega yar wadada yar oo Ruushka uu haysto oo ah magaalo oo madax banaani kaliya ay ugu dhawaaqday waa magaalo gooni-goosad ah ee ka soo go'day Moldova ee ka go'day Ruushka ayaa taageeray dad asalkooda Ruush ka soo jeeda wuxuu doonayaa marka halkaa laga soo bilaabo jiibka ama wadada saas loo soo bilaabo Tiraspol halkan oo Odessa ah Mykolaiv Kherson ilaa iyo zoonahaas oo dhan inuu isku wada xiro ayuu doonayaa qaybtan hoose ee koonfureed oo dhan ilaa iyo bariga inuu isku wada xiro doonayaa uu saa u wareejistay ilaa iyo labada gobol aan soo sheegnay Luhansk Donetsk inuu isku wada xiro Ruushka markaa wuxuu haystaa dhul aad u weyn ka tirsanaa dhulalka Ukraine ayuu gacanta ku dhigay waa hadafka asaga siduu damacsan yahay oo uu doonayo uu jecel yahay dagaalka isbedelkiisa waa kala maalmihii hore dagaalka aad wuxuu ugu wajahnaa Kiev iyo koonaha aad arkaysaan oo waqooyiga ah ayuu ku wajahnaa dagaalka hadda wuu soo wareegay wuxuu dhammaantiis ku soo idlaaday bariga aad arkaysaan gobolada bariga ah ilaa iyo koonfurta halkaas asagoo Odessa doonaya si uu halkaa jiibka yar ee magaalada halkaa ku taasho oo gooni-goosadka ah iskeeda ugu dhawaaqday inay gooni ay u istaagtay in uu taageero ayuu doonayaa oo halkaas uu garab u siiyo haddaba
waa arkaysaan taangiyaashi dagaalkii fakta hore dhibaatada kasoo gaartay ruushka waad u jeedaan xaaladda hadda waxay maraysaa sida aad arki karaysaan maapkan aad u jeedaan Zaporizhzhia oo halkan ah aad arkaysaan magaaladan dagaal ayaa ka socdo oo ruushka uu ku wajahan yahay Mariupol iyadana sidoo kale dagaal baa ka socdo Azovstal waad garanaysaan waa magaalo ku dhex taala Mariupol ciidamada Azoviyiinta ee ka dagaalamayaan oo ciidamo diini ah oo Christian ah oo waxa waaye aad kaga soo horjeeda ruushka oo wadaniyiin ah oo Ukrainiyiin ah hadda meel masnac ah oo nuclearki waxa xagga hoose lagu bacramiyo ayay ku jireen badankooda xataa ruushka kagama dabaharin halkaa uu ku duqeeyay waxa weeyaan duqeyn ayuu geystay waan arki doonaa si oo muxuu ahaa magaaladaas oo u galo oo qabsado qolooyinkaana hore ayay kaga dileen dad fara badan oo generaalada ruushka ka mid ah iyagana inuu ka takhaluso ayuu doonayaa sidaa arkaysaan halkaanba ruushka aad ayuu Luhanski iyo Donetsk oo ugu socdaa sidoo kale halkaas wuxuu ka qabsaday Liman oo kale oo halkaa ku taalo ayuu qabsaday Evdafkia oo halkan ku taalo oo iyadan ka mid ah muxuu ahaa gobolkan Donetsk ka mid ah asagana uu qabsaday Marinki iyadana uu qabsaday meelahaas ay ku taalaa marka waxa weeyaa ruushka bariga aad ayuu ugu soo fogaanayaa sidoo hore uu dhaamaa aad buu usoo durkay sidoo kale Mariupol halkan aad cadaadis weyn buu ku haystaa maalin fara badan buu ka qabsaday waatana Melitopol asana caadi ayuu u qabsaday sidoo kale Berdyansk iyadana waa halkan ay ku taalaa Mariupol dhinaceeda hoose iyadana waxa weeyaan ruushka gacanta ayuu ku dhigay waa arin aad dhibaato ugu ah ciidamada Ukraine taangiyadan waa fakti hore dagaalada markay ay ahaayeen xaafadaha iyo luuqyada Kiev si iskaga caabin jireen ciidamada Ukraine laakiin hadda dhul banaan ayaa la tagay oo ah gobolada bariga ah dhismaha uu ku yar yahay marka awoodooda dagaalan ciidamada Ukraine sidaa uma sii xoogana maadaama aysan haysan hubka gantaalada ridada dheer wuxuu yahay gantaalada ridada gaaban xaafadaha iyo magaalooyinka lagula dagaalamay taana waxa weeyaan waxa ugu wacan Mareykanka oo aan hubka xoog badan aan ku hubeynin oo marka hore oo islaha dagaalku wuxuu ku koobmayaa kaliya magaalada ay caasimada gantaalada garbaha laga riday gantaalada lidka taangiga iyo waxyaabahaas ayuu siiyay marka kulley hadda Mareykanka taageero kale ayuu siinayaa oo 150 oo ka mid ah maxaa lacagta dollarka ah 150 milyan ayuu Mareykanka sidoo kale wuxuu sheegay inuu mar labaad oo ku taageerayo muxuu ahaay Ukraine sidoo kale halkaas waxaa jirta in qaramada midoobay ama golaha amniga uu leeyahay waxaa loo baahan yahay in dagaalka xal loo helo nabad in la raadiyo weeyaan ay waxay leeyihiin golaha amniga ee qaramada midoobay Mareykanka sidoo kale Pentagonka waxay beeniyeen diideen markabkii weynaa ee dagaalka ah ee ruushka ah ee ciidamada Ukraine qaraxa u geysteen inay iyaga qayb ka ahaayeen taas iyadana way jirtaa hadalada ugu dambeeya waxaa ka mid ah in madaxweyne Zelensky uu leeyahay ilaa 300 oo raid ah ee ku jiray halkii Azovstal masnaca Mariupol ciidamada ruushka ku hareeraysanayaan laga soo bixiyay laga soo daadgureeyay hadda magaalooyinka caadiga ah ay soo gaareen ayuu halkaa uu ku cadeynayaa sida u jeedaan qaliidada hadda dagaalka Ukraine sidaan ayuu isku bedelay awal halkaa waqooyi iyo Kiev dagaal baa ka socday ciidamada ruushka halkaas bay awoodiis ku wajahneed hadda imanka sheekadu uu bedelay marka wuxuu doonayaa bariga ilaa ay koonfurta oo dhan ilaa ay Odessa ilaa iyo Transnistria inuu isku xiro gobolka Moldova ka go'san waa Transnistria ayaa la yiraahdaa inuu dhammaan israaciyo doona lacala hadii gorgortan dhacdo xataa inuu yiraahdo ruushka labadan gobol oo dhameystiran ayaan u baahanahay iyo Crimea oo ah jasiiratul Crimea laga daba imaan macnaheedu markaas injaaz buu Vladimir Putin sameeyay maxaa yeelay at least dhul dheeraad ah oo shacabkiisa iyo dadkiisa ay ka faa'iideystaan ayuu dib u soo xoreeyay laakiin uu maleynaya Mareykanka iyo xulafada is wadata
inay arrintaa aqbalayaan ama ay yeelayaan taana waxay dhici karta inay dagaal xoogan oo ba'an ay la galaan muxuu ahaay ruushka. marka sidaa arkaysaan Kherson iyo Odessa dagaal ba'an baa ka socdo xaggooda hore waa magaalooyinka adiga qayb ka mid ah iyo Mykolaiv oo halkan ku taalo oo halgamaya weli way halgamayaan saa darteeda ruushka ma gaari karo qaybtaas gooni goosadka Moldavia ka goosta dadka ruushka ku nool yihiin ruush oo dusha ka ilaaliya waa gobol iskiis iskugu dhawaaqay madax banaani waxaana la yiraahdaa Transnistria ayaa la yiraahdaa. marka Ukraine halkan waxay ka wadaan iska caabin inkastoo awoodooda aysan lahayn. daawadayaal sidoo kale halkan waad arkaysaan waa masnaci Mariupol ku yaala Azovstal ahaa degmada Azovstal oo ka baxayo qiic maxaa yeelay duqeymo fara badan ay ruushka ku hayaan mararka qaarna waxay yidhahdaan anaga ma duqeyno laakiin sida halkan ka muuqato waxa weeyaan duqeymihii weli kama eedaanin wuu ku socdaa. marka kolley iyo sida ay la tahay ciidamada Azovka hadda way taagdareeyeen maxaa yeelay caawinaad ayay sugayeen caawimaadana Mareykanka iyo reer galbeedka hore uma ay soo gaarsiin waxay ka dhigeen sheekadii in ay siiyaan hub yar oo daciif ah mar walba dagaalku iyo dilka iyo baaba inuu uu sii dheeraado ay doonayaan oo Ukrainiyiinta iyo Ruushka aad isku nacaan si hadhoodii Ukrainiyiinta dhinacooda u noqdaan. marka wixii soo kordhana waan arki doonaa maalmaha soo socda ayaan arki doonaa. sidoo kale ruushka waxyaabaha taatiga oo isticmaalaya waxaa ka mid ah gobolada galbeed oo dhan kaalmada ka soo galaysa sida Lviv oo kale iyo deegaanadan kaalmada ka soo gaaraysa oo halkaa laga soo caawinayo Ukraine oo dhan duqeyn buu ku hayaa duqeyn ba'an ayuu ku hayaa wadooyinkan wixii soo maray oo dhan duqeyn ba'an ayuu ku hayaa ruushka si aan loo soo gaarsiin mucaawano oo goboladan oo si toos ah oo u wada qabsado. marka daawadayaal waad mahadsantihiin maadaama aad la socotaan kanalka waxaan iga codsanayaa in aad like-ta iyo share-ta aad ku caawisaan channelka si uu u gaaro dad fara badan oo ka mid ah oo mujtamaca Soomaaliyeed oo xiiseynaya arrimahan inay maqlaan waa channelkiina Qaalim Media iyo mucalliqiina AF oo idin leh sida iyo nabadgelyo intii kulanti wacan daawadayaal aad iyo aad ayaad mahadsantihiin.